kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka caalamiga NTN ku soo dhawaada wararka habeenimo. Warka habeenimo waxa si wada jir ah idinku soo gudbin doona anigoo ah Liibaan Maxamed Aadan iyo Sakriye Cabdikariin Nuur. Ku soo dhawaada wararka ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba. Warka aan idin hayno waxa kamid ah Somaliland oo Puntland uga digtay inay joojiso dhaqdhaqaaqa ay ka wado Buuhoodle. wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Xashan Sheekh oo gaaray Baydhabo. wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur oo u degay madaxda dawladda iyo sababta. wararka dibadda waxa inoo haya Sakriye Cabdikariin Nuur oo saacadii u dambeeyay isha ku hayay ku soo dhawow Sakriye. wararkeena dibadda aan idin haynana waxa kamid ah weerar lagu dilay ilaa iyo 100 qof oo ka dhacay dalka Chad. TPLF oo sheegtay in ay dagaal hor la galayso Eritrea. qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin soo tabin doonaa inta aan ku guda jirno war waa maalinimo talaada taariikhduna ay tahay 31 bisha May sanadka 2022 daawadayaal ku soo dhawaada warkeeni duhurnimo oo fidsan. xukuumadda Somaliland ayaa u hanjabtay in ay tallaabo ka qaadi doonto dhigeeda Puntland xilli ay dhaqdhaqaaq ciidan ay ka wado magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer. saraakiisha ciidamada militariga ee degmada Buuhoodle oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay digniin culus u direen ciidamada Puntland ee ku sugan agagaarka degmadaas. sidoo kale saraakiishu waxa ay sheegeen in ciidamo ka tirsan Puntland ay degmada Buuhoodle ka hurinayaan colaad dagaal iyagoo baaq u jeediyay waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku sugan degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer. waxaa jira cabsi ay ka qabaan dadka deegaanka taas oo la xiriirta inuu halkaas ka qarxo dagaal culus oo u dhaxeeya labada dhinac maadaama Somaliland ay shalay degmada Buuhoodle ay geysay ciidamo fara badan oo wata gaadiidka dagaalka sidoo kalena aad u hubeysan. dhankooda kuwa Puntland waxa ay degmadaas ka wadaan dhaqdhaqaaqyo military iyagoo gaaf wareegaya degmada xaafadaha ku teedsan. waxaase xusid mudan in Puntland aysan weli ka hadlin xiisadan dagaal. wafdi hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed iyadoo halkaasi ay si weyn ugu soo dhaweeyeen mas'uuliyiin oo ku jira madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen iyo boqolaal ka mid ah bulshada magaaladaasi. socdaalka madaxweynaha uu ku tagay magaalada Baydhabo waxa ku helinaya ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan, qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada xildhibaano iyo ergeyga madaxweynaha Soomaaliya arrimaha abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur. safarka madaxweynaha waxa ka hadlay afhayeenkiisa Cabdikariin Cali Kaar isagoo sheegay in madaxweyne Xassan Sheekh markasta uu madaxweyne noqdo uu safarkiisa ka bilaabo magaalada Baydhabo hase yeeshee uusan intaasi ku koobnayn safarkiisa uu halkaas ku aaday. sidoo kale wuxuu sheegay maadaama madaxweyne Xassan halkudhigiisu ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah wuxuu safarkiisa Baydhabo ku saabsan yahay Soomaali heshiisa balse wuxuu xusay in marka ay Soomaalida heshiiso ay dawladnimadana hana qaadi karto. sidoo kale afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar ayaa sheegay in arinka xirnaanshaha Sheekh Mukhtaar Abu Mansuur Robow aysan ahayn mowduuc gaar ah oo ay labada madaxweyne ka wada hadli doonaan. daawadayaal halka aad nagala socotaan weli waa NTN TV. wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa markii ugu horeysay shaaciyay in ay dacwad badan oo ka dhan ah mas'uuliyiinta dawladda uga timid ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka. mas'uuliyiinta dawladda ayaa ugu baaqay in ay ilaaliyaan shuruucda wado marista maadaama ay tusaale u yihiin shacabka isagoo uga digay in ay qaadaan wado kasta oo ka dhan ah ama ka hor imaanaysa shuruucda. mas'uuliyiinta dawladdu waa in ay u hoggaansamaan shuruucda wado marista mas'uuliyiinta dawladdu waa in ay u hoggaansamaan shuruucda wada marista madaxdu waa in ay tusaale shacabka u noqdaan oo aanay gaadiidkoodu ka gudbin marshabiyeediga ama la maro dhinac aadan wadada ka lahayn ayuu yiri wasiir Cabdullaahi. sidoo kale waxa uu wasiirku ugu baaqay gaadiidka ay wataan ciidamada dawladda in ay ilaaliyaan nabadgelyada wadooyinka xilliyada saxmadda ama ciriiriga uu ka jiro oo aan loo baahnayn in ay wadada dhanka kale ka maraan ama marshabiyeediga gaariga dul mariyaan. wasiirka ayaa ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka ku amaanay shaqada adag ee ay hayaan taasoo uu sheegay in ay horseed u tahay dadaal uu geliyay Generaal Bishaar Abshir Geedi taliyaha ciidamada taraafikada.
ugu dambeyntii waxa uu soo jeediyey in wax laga bedelo shuruucda ay ku shaqeeyaan ciidamada ilaalada nabadgelyada kaas oo ah mid duugoobay oo la meel mariyay 60 sano ka hor. Wadayaal haatan ku soo dhawaada wararkeena dibadda. Wararka ka imaanaya dalka Chad ayaa sheegaya in ka badan 100 qof ay ku dhinteen isku dhacyo dhex maray kooxaha dahabka ka qoda waqooyiga dalkaas sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta dalka Chad. sidoo kale waxaa dalkaasi ku dhaawacmay in ka badan 40 qof oo kale. Isku horimaadyada ayaa badankoodu waxay dhaceen 23 ilaa 24 bishan May waxayna ka dhaceen degmada Kori Bogodi oo u dhow xuduudda dalka Chad uu la wadaago Liibiya. goobta weerarku ka dhacay ayaa la soo sheegayaa inay ka mid tahay meelaha sida sharci darrada ah ay dadweynuhu dahabka uga qotaan. wasiirka gaashaandhigga dalka Chad ayaa sheegay in dagaalku uu goobta dahabka laga qodo ka bilowday xilli habeenimo ah balse faahfaahin intaas ka badan kama bixin sababta keentay dagaalka. wasiirka warfaafinta dalka Chad ayaa sheegay in weeraradu ay dhex mareen kooxo Carab ah oo ka soo gudbay xuduudda dhinaca Liibiya iyo qowmiyadda Tama oo degan dhinaca bari ee dalka. dowladda Chad ayaa haatan mamnuucday howlaha macdan qodista ee degmada Kori Bogodi iyadoo oo halkaas ka daadgureynaysa dadweynihii goobtaas ku noolaa. daawadayaal halka aad nagala socotaan weli waa NTN TV. xooga ku sugan gobolka uu dagaalku halakeeyay ee Tigray ee dalka Ethiopia ayaa sheegay inay dagaal hor la galeen dalka deriska ay yihiin ee Eritrea. qoraal uu barta Twitter-ka soo dhigay Getachew Reda oo ah sargaal sare oo ka tirsan kooxda TPLF oo sanad iyo bar dagaal kula jiray dowladda Ethiopia iyo xulafadeeda oo ay ku jiraan ciidamo ka socday Eritrea ayaa sheegay dagaalka u dhaxeeya ciidamada Tigreega iyo Eritrea uu dhacay toddobaadkii hore. sargaalkan ayaa sheegay in ay guul ka gaareen dagaalka isagoo Eritrea ku eedeeyay inay isku dayayso inay xiisada ka sii darto. dhanka kale war laga baahiyay telefishinka Tigray TV oo xiriir la leh ciidamada Tigreega ayaa lagu sheegay in ciidamada Eritrea ay laba maalin oo isku xigta bam ku garaaceen magaalada Shareero. Eritrea weli kama hadlin arrintan oo aan sidoo kale loo xaqiijin karin si madax bannaan. daawadayaal warkii aad kala socoteen NTN TV waa naga intaan warkaan warkixii ku kulmi doono waxaanu idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. NTN TV